هذه وضع كانت غيرها أود واسد marka inaan u sheegno dadkaas siyaasiyiinta caraysan waqtigiina waa dhamaaday ayaama hore waxay wadeen inay yidhaahdaan dowladdu waa ku fashiltay amniga dadku waa qabsaday hadda taas waa shaqayn weyn hadda waxay yidhaahdeen financial management systemkii dhaqaalaha waa fashilay dad badan oo shisheeye oo awal magaca bixin jiray yaa noo diray maxaa yeele waxay arkaan dhaqdhaqaaqa xisaabtii arkaan inaan adag ammaanadii ummadda loo dhibatay inaan u ilaalino dadkii iyaga ahaa IMF-kii iyo World Bank-kii iyo European Union-kii yaa waxay leeyihiin dowladda waa dowlad nadiif ah waa inaan dhaqaalo ku bixin waa inaan dhaqaalo siino iyaga waxay leeyihiin maya yaa la siin dhaqaale oo haddaan dhaqaalada siin Soomaaliya dalkaasay u jiri karaan marka dalkaasay u jiri karaan haddii iyagu ay soo taagnaadaan annagoo shaqaynayna oo wax wanaagsan ka shaqaynayna oo xaaraantii ka fogaanay oo ammaanadii ummadda u hayna oo shaqo wanaagsan u hayna oo markhaati ay ka noqdeen kuwiina gacanbadaxayn jira oo ay direen inaan nahay dad hufan oo transparency ah oo nadiif ah oo yiri keliya maaha waa fiicantihiin waxbaan idinkugu daray bacdinaan ugu dhaxaa waa kartaa dad kale dadka shaki gelinaya ama dadka shacabka Soomaaliyeed kalsoonida ka qaadaya yay u dareenaya waa wax kale maaha xanaaqii baa ka batay marka qofka xanaaq ka bato wuxuu ku dhawiyaa xoolaha waalida